xubno ka mid ah soomaalida degan magaalada edmonton ee dalka canada ayaa iyaguna ku guulaystay inay iibsadaan dhul ay ku tilmaameen inuu yahay kii ugu weynaa ee ilaa iyo hadda ay iibsadaan soomaalida ku nool waqooyiga amerika. dhulkuna lagu qiyaasay inuu qiyaas ahaan dhan yahay 290,080 mitir oo laba jibaaran ayaa qiimihiisu uu gaadhaya $6,500,000 oo doolarka waddanka canada. waryahayaga jaamac buulo jaamac ayaa warbixin nooga diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya. iibsiga dhul ballaaran oo ay soomaalidu leedahay deegaan iyo ganacsi bana noqonaya waa mid ka cusub qurba joogta gaar ahaana reer kanada. bashiir xaaji cali oo loo yaqaan jamaal waa guddoomiyaha guddiga dhulkan maamulaya. waxa aan weydiiyey bashiir xaaji cali inuu noo sharaxo sida iyo wakhtiga ay dhulkan heshiiskiisa soo afjareen. dhulkan waa dhul ku yaala bartamaha magaalada Edmonton qaybta waqooyiga. waa dhul baaxadiisu ay tahay 18.69 acres. marka xagga feedka loo rogana waxa weeye 850,000 oo square feet. waa dhul hadda ay ka dhisan yihiin guri ama xafiisyo 2 dabaqa iyo 2 guri oo kale oo degaana. waana dhul noqon kara degaan iyo ganacsi intaba. qiimaha dhulkan waa mid aad u qaali ah marka la eegayo tabarta soomaalida Canada oo intooda badan dalkan ku nool 20 sano iyo wax ka yar. hase ahaatee marka suuqa la fiiriyo waxaa la dhihi karaa waxa ay soomaalidu ku heshay qiimo wanaagsan. 6,500,000 soomaalidu ma ku bixin karaan wakhtiga loogu talagalay in dhulka lagula kala wareego. dhulkan muddo dheer kadib oo ay communityga magaaladan degan ama bulshada Soomaaliyeed halkan degan ay ka wada hadleen dhulkan iibiskiisa. ugu dambeyn guddi anigu aan ku jiro yaa waxay go'aansadeen iyagoo matalaya bulshada ku dhaqan Edmonton in dhulkaa la iibiyo. dhulkaana waxaanu iibinay oo qalinka ku duugnay bishii lasoo dhaafay August 29. markii aanu daraasad samaynay jaamacow dhulkan iskamaanan iibin. dhulku sida aan kuu sheegay waa 6,500,000. waxaanu u qaybinay saami qaybsi baanu ka dhignay. waxaanu u qaybinay 6,500,000. waxaanu ka dhignay 130 saami oo saamigiiba uu yahay 50,000 oo Canadian ah. marka waxaanu bulshada ku dhiirigelinay oo u sharaxnay qaabka ugu fudud ay u bixin karaan maadaama aynu nahay dad islaam ah oo aan ribada ay ka xaaransan tahay. waxaa bulshada isku raacday in lacagta aynu bixino oo aan deyn aynan ku qaadan. waxaanu marka sidaasaan u qaybinay. marka dadkii waxaanu ihi isu raaca 50. marka si fudud matalan 50kii qofba waxay iibsan karaan hal sheer. qofkiibana wuxuu keeni karaa $1,000. qofkii isagoo haystee lacag haystana ama labadii qof ee 25,000 haystana saasay isugu darayaan. marka imika 130kii saami ama sheer almost hadda ilaa hadda kala badh waanu iibinay. sida aad maqlayseen bashiir xaaji cali waxa uu sheegay in saamigiiba uu dhan yahay $50,000 oo doolarka Canada ah. dhul ahaan muxuu noqonayaa saamiga 50,000 joogo? isla bashiir ha inoo sharaxo. wuxuu noqonayaa haddiiba ay noqoto horta waxaan ugu talagalnay dhulkan dhul isagu haddaad markaan iibsanay August 29 iyo maanta isku qiimo maaha. maalintii haddaanu ku iibsanay 6 milyan iyo badh iyo 6 milyan iyo badh maanta 7 milyan wuu maraya. waxa weeye marka laba faa'iidaba way ku jirtaa. iyadoo dhulkii faa'iida ka soo baxayso oo guryihii iyo xafiisadii la kireynayo iyo weliba tower ku yaalo oo wax royalty fund la yidhaaho ay laga qaato sanadkii lacag 30,000 oo dollara. dhulkii oo kacayo faa'iide ah oo investment ah ama maalgashi ah iyo isagoo lacag ka soo baxayso. haddii aan jawaabtii ku noqdo haddiiba 130 qof ama sheer loo qaybiyo dhulka baaxadda leh qofkiiba wuxuu helayaa 6,500 oo square feet oo ay uga dhismi karto markay ugu yaraato keligii 6 guri oo keligoo taagan oo waxa la yidhaha single houses. nimco cabdi xasan waxa ay ka mid tahay ganacsatada Soomaaliyeed ee Edmonton ee Canada ku nool. sida oo kalena waxa ay ka mid tahay dadka maalgashigan ka qayb galay oo weliba wakhti ku daray si ay guddiga hawsha wada uga mid noqoto. waxa aan weydiiyey wixii iyada ku qanciyey in ay maalgashato dhulkan. meesha waa tagnay waa halbowlihii magaalada. waa dhul aad iyo aad u weyn siduu hadda kuu sheegay Jamaal. dhul ahaan waxaa geli kara siduu ninkii gadayay booska uu noo sheegay ilaa iyo 570 guri. ganacsi ahaan markii la dhaho annaga Soomaalida Edmonton khaasatan dadka ganacsatada danbay noo tahay. siday guddigana noo sheegeen waxaa ka dhismi doona mool weyn ay Soomaalidu yeelato Edmonton.
oo ilaa iyo 250 ilaa iyo 300 oo business qaado gas stationno iyo iskuulaad masaajidyo intaba uu ka dhismayaa sidoo kale inuu haddii loo baahdo oo isku raaco guddiga iyo dadka shareholderada ka dhistaan wixii boos ah guryo maadaama meeshii ayna wax riba oo xaaraana aynan oolin waxaan go'aansanay inaan ka qayb qaadano waxaa sidoo kale aan Nimco weydiiyey in marnaba ay ku fikirtay in hantida ay dhulkan gashanayso ay ka qasaari karto maba taalla meesha waayo booska waxaa laga gaday dawladda waxaa akoonka lacagta ay ku dhacayso waa bankiga dawlad kambaniga laga gaday xataa kambaniga dhulka laga gadayo toos uguma dhacayso trust account bay lacagta ku dhacaysaa aniga hadda lacagta aan soo bixiyey trust account aan kusoo shubay Jamaal kuma soo shubay guddiga kalena kuma soo shubay qof walba wuxuu ku shubayaa akoonka dadka dhulka laga gaday xataa lacagtaada qofna ma dhumsan karo qofna ma qaadan karo meel ma mari karo ugu dambayntii Bashiir Xaaji Cali oo loo yaqaan Jamaal ayaan weydiiyey inay jirto khatar ku aadan in dhulkan ay iibsadeen uu sumaysan yahay maadaama uu muddo dheer xarun u ahaa shirkad basaska ardayda qaado oo laga yaabo inay ku khasaaraan sun ay dhici karto in ay basaskaasi shidaal iyo oil ahaanba ay ku reebeen dhulka hoose waa su'aal wanaagsan jaamacow arrinkaas waa la address gareeyey ilaa markii meesha la degay 1976 ilaa 2007na waanu haynaa reportkii environmental assessmentkii lagu sameeyey oo ay sameeyeen kambaniyada ugu caansan ee xagga environmentiga ama hay-ada u qaabilsan wuxuu ballan qaaday inayna siinayaan dhul nadiif iyaguna ay qaabilayaan alreadyna hadda waa lagu jiraayo wiigii labaad buu marayaa qiimaynta dabcan waa wax aad loogu farxo lana soo dhoweeyey dhul intaas leeg inay Soomaalidu ka iibsatay Edmonton Canada balse farxadda kadib qof kasta oo maalgashanaya waa inuu dadaal dheer ku bixiyaa faa'iidada iyo khasaaraha iyo waliba maareynta hanti intaas leeg oo markii ugu horeysay ay Soomaalida Canada wadaagayaan